kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka qodobada maanta ku keenan waxaa ka mid noqon doona xulka qaranka 17 jirada Soomaaliya oo maanta dhulka ku jiijiiday dhigooda dalka Uganda yaar cajiib oo ka dhacay dalka Ethiopia ayaan soo gudbi doona Soomaaliya oo u gudubtay finaalaha mid ku dhici doonta Sudan iyo markaasi Tanzania tii soo gudubta madaxda dawladda ayaa hambalyo u diray waa kee laacibka markaas Soomaaliya guusha taariikhiga u soo hayay waan idin soo gudbi doonaa wararkeena kale waxaa ka noqon doona madaxweynaha Soomaaliya ayaa xilkiga qaaday gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka dibna u soo celiyay gudoomiyihii hore General Liban Ali Yarow waa idin soo gudbi doonaa saaxiibayaal suxufiyiinta Muqdisho waxay dalbadeen in shuruud la'aan lagu sii dayo xogyaha markaasi suxufiyiinta u dooda Soomaaliya journalist SJS Abdallah Muumin oo dawladdu u xiran waxa kale oo soo gudbi doona deedaha markaasi Mareykanka oo duqeymaha qayb ka ah ayaa maanta waxa ay duqeymo hor ka fileen deegaanka iyo Sooman iyo wararka ugu dambeeya daawo doontaan qodobadaasi wuxuu soo qorayaa idinku soo baahin doonaa daawadayaal haddii aad nagu cusubtaa subscribe noo saar kambalka furo una sii share garee saaxiibada meel kasta joogaan idinku kumatiga like-na inoo reebaya aad baad u mahadsantiin aanu ku bilaawno xulka qarankeena 17 jirada ayaa guul cawaaqib leh ka gaaray dhigooda dalka Uganda ciyaar markaas ku soo ilaatay qaybihii hore ama markaas 90kii daqiiqo ciyaarta loogu talagalay gool Uganda ayaa goolka ku hormartay hase yeeshee wiilasha Ocean Stars oo marbaba waxa qabtaagaya kana go'an inay guul gaaraan shabaqana aragti wadaag yihiin ayaa daqiiqadii markaasi ciyaarta markii ay naga dhaliyeen ama ciyaarta Soomaaliya laga dhaliyay 10 daqiiqo wax kadibna 10 daqiiqo kadib ayay ku qaadatay in Soomaaliya goolka guusha ama goolka barajada ay helaan ciyaaryahanka Idris Abdixafiid lagu magacaabo iyana goolka barajada u dhaliyay iyadoo saas ciyaarta ku soo laatay hase yeeshee waxaa la isla gaaray gool kulaad ama markaas rigoore Soomaaliya ayaana markaas ugu dambeyntii ku adkaatay 7 gool iyo markaas 8 oo ay Soomaaliya markaas ugu gudubtay tartanka under 17 ama 17 jirada ayadoo markaas la ciyaari doonta soo badaya midkood xulka Tanzania iyo Sudan madaxda dawladda ayaana hambalida markaas isku boobay dhalinyarada ciyaartooyda ayagoo markaas guulo badan u rajeeyay in ay koobka markaas ka soo jidaan caasimadda Muqdisho warar kale ayaan eegaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilkiga qaaday gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida isagoo markaas dib u soo celiyay General Liban Ali Yarow oo xilkan hore u hayay madaxweynaha ayaa markaasi mar kale xilka gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida u magacaabay gudoomiyihii hore oo xilkan ku qaaday madaxweyne Farmaajo wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa General Liban Ali Yarow ayaa loogu magacaabay gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida oo hore xilkaas u soo qabtay xilka gudoomiyaha ayaa waxa markaas laga qaaday General Maxamuud Axmed Xasan Dalab madaxweyne Farmaajo xilkaas u dhibay balse aanu muuqan waxqabadkiisa General Liban Ali Yarow ayaa waxa uu markaas ka mid yahay dadka sida weyn markaas u dagaalama al-shabaab waxa ay saaxiib dhow yihiin gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaana sare Xasan Al Nuur Shuute iyo Liban Yarow oo ku arkaa waa al-shabaab oo waqtigiisu sii dhamaanayo sidaas ayay qabaan falanqeeyaashu dadka khubarada dhanka ammaanka iyo dhankaas markaas ciidamada iyo dhanka garsoorka markii loo eego waxay hayeen saaxiibo imika dib u midoobaya oo loodii adkaa iyo shaqooyinkii la dagaalanka xagjirnimadana iyo halkaasi ka sii wadanayaan ayaa markaas la leeyahay qeybii hore ayaa daawanaysan janalkeena saaxiibayaal haddii aad nagu cusubtaa subscribe noo soo kambalkeena furo una sii share garee saaxiibada meel kasta joogaan idinkoo kumatiga like-na inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin markaana warbaahinta qeybaheeda kala duwan ee madaxa bannaan ayaa maanta cambaareen kul hawada marsiyey dowladda federaalka ee Soomaaliya oo si sharci darro ah xabsiga u dhigay Abdallah Axmed Muumin oo ah xogyaha ururka SJS qaar ka mid ah suxufiyiinta ururada saxaafadda oo isku soo bax ka dhigay Muqdisho ayaa dalbaday in si degdeg ah oo shuruud la'aan ah loo sii daayo xogyaha ururka SJS Abdallah Axmed Muumin oo shalay xirteen ciidamada hay'adda NISA xogyaha tababarada SJS Hanad Ali Gureed oo ayaa si adag u cabaariyay falka lagu xiriyay Abdallah Axmed wuxuuna dalbaday dawladda inay joojiso caburinta iyo markaas cagduulanta ay ku bilaabeen warbaahinta madaxa bannaan isagoo dalbaday in shuruud la'aan markaas xuridiisa loogu soo celiyo Abdallah Muumin Maxamed Abdihab oo ka mid ah mas'uuliyiinta ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Soomal ayuuna isdhankiisa wuxuu sheegay in si adag ay ugu soo horjeedaan xariga sharci darrada ah iyo caburinta loo geystay xogyaha SJS wuxuuna dalbaday madaxda dawladda in shuruud la'aan markaasi loo fasaxo xuridiisa la siiyo
ciidamo ka tirsan dhisa ayaa shalay garoonka diyaaradaha idaacadda muqdisho ka qabtay xoogaha wixii lagu socdaalay dalka Kenya iyadoona aan weli la sheegin sababta loo xiray iyo waxa lagu haysto inkastoo la fahansan yahay oo kaliya in uu ka soo horjeestay ama inuu ka hadlay amarkii dowladda gaar al-Cadaala ee inaan la baahin karin wararka la xiriira dagaalamayaasha al-shabaab qaybihii dhexe ee janalkeena ayaa daawanaysaa markasta hilmaamina subscribe tiro gobolkan afurtaan mana sii sheergalaysan saaxiibadii meel kasta joogaan idinka hukuumatiga laagina inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin markaana wararka arrimaha gobolka haddii aan eegno Soomaaliya ayaa taageero u helaysa baadhigay oo leed ku aadan in cunaqabateen hubka laga qaado kadib markii Itoobiya ay ku birtay Uganda oo horey u taageertay talaabadaas iyadoo golaha ammaanka qaramada midoobay lagu wada in bisha November ay u codayaan dib u soo cusboonaysiinta xurriyadda xayiraadda ka qayb qaadashada taasoo Soomaaliya sheegtay in laga saaro si ay markaasi si wanaagsan ula dagaalamaan waxa loogu yeeray argagixisada taageerada Itoobiya ayaa timid kadib markii bishii July ee xoogga al-shabaab ee gudaha u galeen dalka Itoobiya ilaa Soomaaliya iyo xulfadeeda ay ka wadaan duulaan ballaaran oo karan madaxweynaha Soomaaliya ayaa iyo wasaaraha waddanka Itoobiya ayaa sheegay inay tahay in la qaado cunaqabateynta 30 sano ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay si Soomaaliya si wanaagsan ula dagaalanto kooxaha xagjirka Soomaaliya ayaa ugu baaqday dalalka xubnaha ka ah midowga Afrika bishii July inay taagaan والله كوادن قايستا cunaqabateynta oo ay ku jiraan hubkii gaadiidka dagaalka ee laga mamnuucay Soomaaliya dhinaca kale wasaaraha dalka ayaa xafiiskiisa wuxuu ku qaabilayaa danjiraha dowladda Kenya u fadhiya Muqdisho Thomas Chikubuta kulogol wasaaraha iyo danjiraha Kenya ayaa looga hadlayay xoojinta xiriirka iskaashiga soo jireenka u dhexeeya labada wadan ee dariska Soomaaliya iyo Kenya Thomas Chikubuta ayaa dhawaan la soo magacaabay safiirka cusub ee Kenya u fadhin doona Soomaaliya isagoo bedelay Lucas Tombo wuxuuna ku soo aaday xilli uu soo wanaagsanayo xiriirka Soomaaliya Kenya oo xumaa muddadii uu taladayay farmaajo Kenya oo xaddeer la Soomaaliya ayaa waxaa dalka looga ka joogaa kumanaan ka mid ah ciidamadooda iyagoona ka howlgala deegaanada Jubbooyinka halkaas oo ay kula dagaalamayaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab guud ahaan wararka waaweyn ee Soomaaliya caalamka ka soo jeedinaya Kenya daawadayaal waa naga inta